wargeys ka soo baxa waddanka Kenya oo lagu magacaabo The Star ayaa waxa uu daabacay in dagaalamayaasha shisheeye ee ka barbar dagaalama Al-Shabaab ay la kulmaan niyad jab weyn taasi oo ay ugu wacan tahay sida ay Al-Shabaab ula dhaqmaan. Waxa uu ka soo xigtay warkan ilo wareedyo military. dagaalamayaal ka soo goostay Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ajaanibta la jooga Al-Shabaab lagu soo oogo dacwado been abuur ah mararka qaarna la geeyo furimaha hore ee dagaalka si loo tijaabiyo daacadnimadooda. waxa ay u isticmaalaan Kenyaanka iyo ajaanibta kale ismiidaaminta iyo ciidanka lugta ama waxa ay ku dilaan shirqool markii ay uga shakiyaan in ay sirdoon cadow u yihiin ayuu nin ka soo goostay Al-Shabaab waxa uu u sheegay ciidanka Kenya. wargeysku waxa uu sheegay in dhalinyarada ka soo laabatay Al-Shabaab ee warkan laga helay ay badankood ka tageen magaalooyinka Jilib iyo Bu'aale oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee Al-Shabaab. dilkii loo geystay hogaamiyayaal saamayn leh oo ka soo jeeda Kenya ayaa walaac ku abuuray xubnaha Al-Shabaab ee jooga Kenya iyo kuwa Soomaaliya. waxaa jira walwal qabsaday Kenyaan ka tirsan Al-Shabaab wixii ka dambeeyay dilkii Axmed Iimaan sida uu sheegay nin ka soo goostay Al-Shabaab. Axmed Iimaan bishii Maaj ee sanadkan ayaa lagu dilay Bu'aale kadib duqeyn uu Mareykanku fuliyay. Axmed waxa uu ka mid ahaa hoggaanka Al-Shabaab ee ka soo jeeda Kenya waxa uuna talooyin xirfadaysan ku lahaa weeraro ay Al-Shabaab ka fuliyeen Kenya oo galaaftay nolosha dad badan. geeridiisu waxa ay yaraysay mooraalka dagaalamayaasha Kenyaanka ah ee la jooga Al-Shabaab waxayna yaraysay kuwii ku biirayay ayuu The Star ka soo xigtay ninka ka soo laabtay Al-Shabaab ee aan magaciisa maqaalka lagu sheegin. dhowr kol oo hore ayaa Al-Shabaab waxa ay dileen dagaalamayaal ajaaniba oo muddo ka tirsanaa qaarkoodna ay madax ahaayeen kuwaas oo ay u shakiyeen in ay basaas u yihiin dawladaha ajnabiga ah ee ay dagaalka kula jiraan iyo dawladda Soomaaliya. sidaas oo ay tahayna Al-Shabaab wali waxa uu dagaalama ajaanib ay ka go'an tahay qadiyadda howlgalka.